fanaaniintan Soomaaliyeed ee Hiban Maxamed Hidoon Hibanuura iyo Cadar Maxamed Kaahin waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha safiirka Djibouti ee Soomaaliya xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka fanaaniinta la soo dhaweeyay ayaa suugaan ku cabiray sida ay ugu hiloobeen dalkooda hooyo magaceena bilgala birtu aanay goyn karin biyana aanay maydhayn waxa marxaatiga u furay mugweynow dhaqankeena sidii muraayada aan ka wada dhex muuqanay in mideeyashanteena sida safiirada oo kale muddo dheer midii uu maankaygu tabayay aan kala maqnaynay aan miiskareeyay magaceena Soomaal magaalooyinka idiltii ugu mudnayday masaakiinta koriyay muslim hooyadii maskaxdii dhulkaygay saldhigii midnimaday madaxtooye qaran ee Muqdisho ma nabadba safiirka Djibouti ee Soomaaliya Aadan Xuseen Aadan oo soo dhaweynta qayb ka ahaa ayaa isna halkaas hadal ka jeediyay annaga sharaf noo tahay inaan soo dhaweyn marka soo dhawaadan leeyahay Cadar iyo Maaritaan Hibo ummadana rajaha nabadda ee la raadinayo waxyaalaha ay ku amaanan tahay dawladda Farmaajo waxa kamid ah qiimeynta fanaaniinta iyo tixgelintooda waana tubta iyo wadada loo maraya nabadda dib u dhiska dalka dhiirigelinta dhalinyarta iyo nooleynta jiritaanka ummadda Soomaaliyeed Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yari gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa xustay in fanaaniintan ay u bannaan tahay fursad ay uga qayb qaadan karaan dib u kabashada dalka fanaanadeena weyn Ilaahay cimrigeeda ha noo raajiyo magacii muunada agteena ku leedahay jacayl ay u qabto wadankeeda iyo ummadeeda iyo dadkeedana waxay u soo noqnoqonayso ay u imaanayso markasta waa in soo dhaweynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta Cadar Kaahin inay joogto mar allaala markaan is aragno mar allaala markaan ku noqdo Minneapolis Cadar Kaahin waxa waa qof i garab taagan oo timaado oo igu soo dhaweysa Samsam Daahir Maxamuud oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ayaa xustay in Hiba iyo Cadar ay dalka dib ugu soo laabteen sidii ay wacyigelinta bulshada kor ugu qaadi lahaayeen waa in soo dhaweynayna Muqdisho Soomaaliya ku soo dhawaada dalka waa idin baahan yahay dadka waa idin baahan yihiin annaga doorka aad qaadan kartiin ugu muhiimsan waxay tahay dadkan wacyigelin u baahan yihiin taariikhdii hore in looga sheekeeyo u baahan yihiin barisamaadkii wixii dalka u ahay qiimaha dalka u lahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed qiimaha lahaayeen in loo sheegay u baahan yihiin wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Maxamed Salaad ayaa fanaaniintan ku bogaadiyay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib sanado badan oo ay Mareykanka ku noolaayeen inta sharafta la runtii aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta waxay ku tusaysaa dad badan oo ka socda xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiiradii safiiradii inay halka kugu soo dhaweynayaan sida ay Soomaali ku jeceshahay halkaas ku tusaysaa waan ku soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay imaashahaada waxay tusaysaa Soomaaliya inay Soomaaliya dib u soo noqonayso sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho